السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال فيديو يدي لسكنا في جير معهن wuxuu u baahan yahay in la sheer gareeyo oo meel dheer la gaarsiiyo si dadka u baahan uu u gaaro fiidiyogan oo adinkana maxaa la dhahay ajirka aad u heshaan haddii aan mawduuca aan guda galo waxaa waaye hooyo ayaa shiikh soo wacday shiikha bartaana soo saari doona insha Allah ruqyadiisa hooyada shiikha markay soo wacday waxay dhahday maxaa la dhahay shiikha horta waxay dhahday cafisa ku weydiisanaa waxay dhahday waan kugu dambaabay marka horeeto cafisa ku weydiisanaa shiikha wuxuu dhahay waan ku cafiyay waxay dhahday sababta aan maxaa la dhahay aan sidaas aan kugu dambaabay oo cafiska aan ku weydiisanaya i weydiiyay dhahday markaasuu dhahay muhiim maahan haddii aa ogaaday iyo haddaa ogaaninba aniga cafisa iga tahay laakiin ayadii waxay go'aansatay inay sheegto si ummad badan ay uga faa'iidaan waxay dhahday sababta aan maxaa la dhahay aan shiiqow aan kugu dambaabay waxaa waaye dhahday waxaa ii joogay dhahday wiil yar oo 10 jir ah wiilkaas waxay dhahday maalinkuu dhashay ilaa iyo hadda oo 10 sano jiro waxay dhahday xanuun ka bixi waayay markuu dhashayba xanuun ku yacni ilmaha oo markay dhashaanba adii muddo kadib adii dhowr bilood kadibba xanuun ku soo boodoo noqday kadib waxay dhahday dhakhtarkiisa ugu noqon jiray maxaa la dhahay qaliin heer wuxuu gaaray maskaxdiisa oo lagu rakibo jihaasyo lagu rakibo jihaasyadaasna dhowr bilood kadib laga bedelo oo wuxuu u noqday qof jihaas ku nool laakiin oo koomo ku jirin laakiin dhowr bilood kadib laga bedelaayo aduu markasta iska xanuunsanayo xaaladiisa ay meel saarneen aniga sidaas waxay dhahday alxamdulillah muddadan waxay dhahday soo iska yar roon waxay dhahday ruqyadaada aan arkay ruqyadan magaceeda waxa la dhahaa ruqyada tactiil lahaa tactiil macnaheedu hadda idin sii macneeyana waxa waaye wax kasta oo booskiisa istaago oo shaqeyn waayo yani wax kasta oo yani haday xanuun noqoto xanuun oo waxaan ku dhahay qof lala tacaalayo uusan caafimaadeynin oo xanuun soo taagan qofkaas waxaa haysta tactiil maxaa la xaalad kasta adi oo booskeeda istaagan waxaa la dhahaa macnaheeda tactiil ruqyadana waxaa loogu magac daray ruqyada tactiil yani arrin kasta loo akhrisan karaa bes kaliya xanuun bes maahan laakiin hooyadan waxay dhahday maxaa la hayay ruqyadii waxay dhahday TV-ga aan ka shiday gurigaan ku shiday markaa shiday waxay dhahday canugeyga dhowr maalin kadib wuu soo xanuunsaday waxaa dib igu bilaabatay dhahday inaa isbitaalkii aan ku laalaabto sidaa waxay dhahday maxaa la dhahay saas u ahaa maalintii dambe waxay dhahday shiiqa mucjizada ah ruqyadiisa canugooba iga xanuunsaday waxaan dhahday waaba iska dhaafaabo ruqyadii waxaan go'aansaday dhahday inaan iska dhaafo laakiin canuga waxaa waaye canugi adeer 10 jir oo wax kala fahmaaye maalin kasta TV-ga hadduu shido waxaaba laga celin waayay ruqyadii washida TV-ga ruqyadii u geysanaa washida war hooyo naga dhaaf war waxay dhahday xaalad sida ugu jirnay dhakhtarkii ugu laabanayay maalintii dambeeta ilaaha amarkiisa dhakhtarka wuxuu dhahay canugaada maxaa dhahay mar labaad qaliin maskaxda looga sameeyna oo maxaa dhahay xaaladiisa oo jihaasyada la jeegareena kadib hadiiba xaaladii la jeegareeyay dhakhtarka wuxuu dhahay canugan jihaas ma u baahna maanta laga bilaabo maskaxdiisa saliimay noqotay waxay dhahday wixii ku jirin waa laga soo bixiyay alxamdulillah waxay dhahday maanta ilaahay fadligiisa iyo sheekho fadligaada ruqyadii wiilkayga maanta uu ugu caafimaaday wuxuu ahaa canug 10 sano jiro oo maxaa la dhahay maskaxdiisa meel kasta laga duleeliyay canug aan hadlaynin wallahi saraxatan aada ula qeyrooday qisada markaa dhageystay anigoo qalbigayga oo waxaan ku dhahay ka sheekeynteeda aan xanuun aan dareemayo laakiin haddana ummad badan inay ka faa'iidaan aan rajaynaya biliis ruqyada bartaana soo saaraya sheer gareeya qof kastoo xanuunsan qisooyinka aan aniga ruqyadan aan ka dhageystay dadkii ku caafimaadeen wallahi haddii aan idinkaga sheekeeyo waxaan ku dhahay subxaanallah waxaa laga yaabaa Soomaali badan inay xaaladaas la dhiban tahay insha Allah biidinillah waa idin soo sheegi doonaa intii aan awoodo intii qalbigayga siinayninna waa iga raali noqonaysiin